jasiirada ay buuxiyeen kaneecada iyo wasakhda ilaa ay ka mid noqotay hoggaanka dhaqaalaha ugu xooggan caalamka. Sida ayuu ku aasaasay madaxweyne Lee Kuan Yew dalka Singapore aan hadda naqaan. Kumay ekaanun Singapore inay ahaato weli mid u daacad ah gumaystiga Ingiriiska ee waxay si dimuqraadi ah u doorteen madaxweyne Lee Kuan Yew sanadkii 1959. Intaa kadib waxay Singapore ku dhawaaqday inay qayb ka tahay midowgii Malaysia sanadkii 1963 xornimadii Ingiriiska kadib. balse 3 sano oo kaliya markii laga joogay midowgaas, dawladda Malaysia waxay bayaan ku soo saartay inay ka taqallustay dawladda Singapore. waa marxaladii oo Lee Kuan Yew ka hor ooyay saxaafadda. su'aashuna waxay ahayd maxaa la gudboon dalkaaga uu aafeeyay faqriga iyo kaaba dhaqaale la'aantu. badka dhulkiisu uu ku fadhiyaana aanu ka badnayn 720 kilomitir oo laba jibaaran. shacabkiisana aanu kulmin luuqad asal taariikh ama qoomiyad midaysan, mana lahayn batrool ama dahab la iibgeeyo. masiibadu waxay soo jiidaa mararka qaar mucjisada. madaxweyne Lee Kuan Yew waa uu ogolaaday tartanka, waxaanu isugu yeedhay kooxdii ugu aqoonta badnayd xukuumaddiisa, waxayna dhigeen qorshe lagu talagalay horumarinta dalka iyagoo loo marayo danta maalgashiga shisheeye. shacabka Singapore waxay go'aansadeen in ay wax u bartaan si kasta, kana mashquulaan siyaasadda, halku-dhigna ka dhigtaan hadda waa waqtigii shaqada oo kaliya. Singapore waxay u dhaqaaqday halka iyo warshadaha, iyadoo bilowday samaynta doomaha, handasada birta, kiimikada, dawooyinka iyo soo saarka maayadda korontada. isla markaana waxaa maalgashaday shirkado caalami ah sida Shell iyo Aizo. bilowgii sagaashamaadkii waxaa Singapore loo tixgeliyay inay noqotay dalka saddexaad ee adduunka ee leh xarunta nadiifinta bitroolka iyo kan saddexaad ee ugu weyn ka ganacsiga shidaalka marka laga yimaado New York iyo London. intaasi kadib waxay ka soo muuqatay liiska wadamada ugu wax soo saarka badan dunida. marsada Singapore waxay noqotay dekedda ugu mashquulka badan ee caalamka. intaasi kadib shacabka reer Singapore waxay ka faa'iideysteen waxbarashadii. luuqadda rasmiga ah ee wadankana waxay ka dhigeen English. markii ay dhaqaale ahaan degeen dawladda waxa uu hirgashay inay kala fogeeyaan dadkii isku dhafnaa ee aan guryaha haysan. isla markaana waxay dhiseen guryo kala durugsan si shacabka ay ugu suuro gasho in ay helaan adeegyo caafimaad oo fiican. waqtigaasi 85% qof walba waxa uu yeeshay aqal ku filan qoyskiisa. waxa uu hoos u dhac weyn ku dhacay shaqo la'aantii wadanka, isagoo gaadhay 3% sanadkii 1980, halka ay miisaaniyadda wadankuna ahayd $7 bilyan sanadkii 1960. kadib miisaaniyadda waxay noqotay $360 bilyan sanadkii 2016. isla markaana waxa kor u kacay dhaqaalaha qofkii soo galaya oo noqday $435 oo u dhigma $80,000 sanadkiiba. wax soo saarka maxalliga ah iyo miisaaniyadda dalka Singapore waxay la siman tahay kan Malaysia oo ah dawladdii ku eriday faqri dartii. inkastoo badka dawladda Singapore uu ka yar yahay kan Malaysia qiyaastii 430 jeer oo laba jibaaran. ninkan waxay reer Singapore ugu yeedhaan wasiirka macalinka ama macalinkii sare. markii uu geeriyooday sanadkii 2015 waxa uu ka tegay taariikh qurxoon, sumcad fiican iyo dawlad qani ah oo lagu tiriyo dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida. madaxweyne Lee Kuan Yew waxa uu la kulmay eedeymo badan oo la xidhiidha xukunkiisa, kaas oo uu si toos ah u maamulay 30 sano ee u dambeysay. jagada waxa uu qabsaday 1960 waxaanu ka degay si doorbidid ah 1990. haddana si kastaba waxa uu ahaa hogaamiye u jihaaday kacaanka horumarka dalkiisa, isagoo u bedelay meel wasaqda lagu qubo ilaa xarunta dhaqaalaha adduunka, lagana qotomiyay dabaqyada daruuruhu ay jiidhaan, ayna ku adag tahay hay'adaha musuqmaasuqa iyo wax istabamarintu. halka baasaboorka dalka Singapore uu kaalinta koowaad kula jiro kan Jarmalka qiimeyntii la sameeyay sanadkii 2017.